Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan ka hadli doonaa ama aan si fiican u qada dhigi doonaa, u sharaxi doonaa cost push inflation, sicir bararka uu riixayo kharashku. Ciwaanadii hore waxaan uga soo hadalnay sicir bararka uu keenayay demand inflationku. Sicir bararku imaaday xagga dalabaadka uu sabab u noqday ayaan ka soo hadalnay. Maanta cost push inflationka waxa uu yahay iyo waxyaalaha sababta u noqda in uu dhasho ayaan ka hadli doonaa. Waxaan ogsoonahay in mar walba uu waddanku geli karo xaalad mataqaanaa khatar ah haddii noqoto sicir barar ah ku keeno alaab keeno mataqaanaa qiimo dhac ku yimaada lacagtii ay isticmaali jireen. Waxyaalahaas waa waxyaalaha mataqaanaa lagu arko meel walba oo ka mid ah adduunkan. Waddamada inta badanna way ka sheegtaan arrinta la yiraahdo sicir bararka. Waddan walba marna dhaqaalihiisu wuu korayaa, mar wuu hoos dhacayaa, mar xaalad mataqaanaa aan la cayimi karin buu ku jirayaa. Marka xaaladihiisa uu gelayo mar walba aad bay u tiro badan yihiin. Marka maanta waxaan ka hadli doonaa nooc ka mid ah noocyada inflationka ama sicir bararka ayaan ka hadli doonaa. Cost push inflation goormuu yimaadaa? Cost push inflationku waxa uu yimaadaa marka qiimaha guud ee agabka iyo adeegyadu uu kor ku yimaado sabab ka timid agabkii adeegya mataqaanaa kor wuu ku imaan karaa, laakiin sababaha keena ayaa kala duwan. Mar waxaa keeni kara dhimadhigii, mar waxaa keeni kara import inflationkii. Macnaha noocyada uu ku imaan karo ayaa kala duwan. Marka cost push inflationkuna waxa uu ka mid yahay arrimahaas. Marka waxaan nidhi cost push inflationku waxa uu yimaadaa marka qiimaha guud ee agabyada adeegyadu uu kor ku yimaado sabab ka timid qaaliyow ama kor ku yimi mushaarkii shaqaalaha uu qaadan jiray iyo agabkii cayriin ama alaabta loo yaqaan raw materialska ay shirkaddu u isticmaalaysay wax soo saarkeeda. Markii tusaale ahaan oo kale markii uu company ama shirkaduhu mataqaanaa shaqaalihii mushaarka ay siinayeen uu kor ku yimaado uu bato ama shaqaaluhu ay codsadaan in mushaarka loo kordhiyo iyo mataqaanaa alaabtii la oran jiray raw materialskii ay u isticmaali jireen in ay wax soo saarkeeda marka output qofku doono inuu sameeyo maxaa loo baahan yahay inuu input sumaan. Marka agabkii u isticmaalayay wax soo saarkiisa haddii uu qaaliyoobo hadhowna muxuu keenayaa in outputkiisuna uu qaaliyoobo. Marka waxaan nidhi waxaa qaaliyo uu ku yimid agabyadii ay shirkaddu u isticmaalaysay wax soo saarkeeda ama shirkadda haddii uu mataqaanaa company cusub la doonay in maalgashi lagu sameeyo agabkii maalgashiga ku sameyn lahaa haddii uu qaaliyow ku yimaado ama ay qiimo ahaan ay kordhaan nominal mataqaanaa uu ku yimaado inflationka macnaha nominalkiisa macnaha waxa dhici karta sicir bararka inuusan real ahayn laakiin uu yahay nominal. Marka arrintaas way ka mid noqon kartaa arrimaha sababa cost push inflation. Marka cost push inflation maxaa ku sheegnay arrimaha aasaaska u ah waxa ka mid ah in mushaarkii shaqaalaha uu qaaliyoobo iyo in uu alaabtii cayriin ee raw materialska la oran jiray in uu qaaliyow ku yimaado. Marka shirkaddu ay labadaas cunsur oo qiimaha ama kharashka uga baxaya uu bato waxay keenaysaa in quantity-gii wax soo saarkeeda ay yarayso ayay ku khasbanaanaysaa. Sababtoo ah shirkaddu ma doonayso in kharash intaa la eg in ay gasho. Taasna waxay ku keeni kartaa ayadoo mataqaanaa haddii ay sii wado in quantity ay badiso in faa'iidadii ay helaysay profitkii uu sidaa ku yaraado. Marka shirkaddu inta badan waxay yareynaysaa markaas uu costiga ku yimaado agabkii adeegyadii qadarkoodii ay yareynaysaa. Taasna waxay saameyn aan fiicnayn ku yeelanaysaa dhaqaalihii waddanka. Dhaqaalihii waddanka ilaa markii waddanka la qiimeynayo in uu mataqaanaa growth sameeyey waxyaalaha lagu cabiro waxa ka mid ah isbarbardhig lagu sameynayo sanadkii hore total productionkiisa iyo sanadkan total productionkiisa goods and services markii loo eegayo. Marka arrimahaas ayaa ka mid ah arrimaha loo eegayo markii wax growth waddanka sameeyay in kale. Marka haddii productionka waddanka uu yaraado waxay keenaysaa in waddankaas growthkiisa uu mataqaanaa uu hoos dhac u yimi. Arrintan xataa waxa dhici kara haddii ay shirkaduhu ku sii wataan in mataqaanaa agabkooda ay yareeyaan macnaha total productionkooda markaas ay yareeyaan hadhowda waxay keeni karaan in mataqaanaa macaamiishu ku khasbanaadaan dee
in mataqaanaa maxaa qiimihii qaali ah ay ku iibsadaan qiimaha qaali ah macnaha ama dhiman dhiga inuu yaraado in dhiman dhiga yaraado taasna waxay keeni kartaa dhinaca cost push inflationku uu waddo kale sii furo ah dhiman inflation uu macnaha sabab u noqdo oo mar walba mataqaanaa agabkiina way yareeyeen shirkaduhu ay soo saari jireen kharashka ku baxaya awgii macaamiishana ma awoodaan in ay iibsadaan agabkii adeegyada ay soo saarayaan shirkadahan ama kambanidan sidaas darteed de waxay keeni kartaa meeshaan in mataqana xataa uu mataqana ka dhaco dhaqaal fadhiid uu ka dhaco ay keeni kartaa marka arrimahaas waa waxyaalaha la doonayo in ay dowladdu faragelin ay ku yeelato mataqana ay si fiican u maareyso marka yaana badan ciwaanka haddaan si khulaasa aan usoo koobo sabaha keeni kara inuu dhaco cost push inflationka waxaa ka mid ah qiimaha koowaad mataqaanaa arrinta kood waxaa weeye in qiimaha shidaalka uu hawada isku shareero saan ognahay dee shirkadaha ama kambaniyada ama meel walba ganacsi waxaa loo isticmaalaa dee shidaal loo isticmaalaa sidoo kale waxaa jira goobo kale oo mataqaanaa shirkada ka shaqeysta mataqaanaa arrimaha gaadiidka iyo safarada ay ka shaqeysta ama cid walba mataqaanaa ha noqoto dadka caadiga ah ama ha noqoto dadka mataqaanaa production producerska iyo consumerska intooda badanba dee way isticmaalaan gawaari iyo wax walba isticmaalaan marka ha noqdo shidaalka ay u isticmaalayaan gawaaridooda shaqadooda ganacsiga meel walba ha noqoto ama ha noqoto ay u isticmaalayaan kuleelinta gurigooda oo kale hiitarka guriga waxaas kale ay u isticmaalayaan haba noqoto marka arrimahaasoo dhan mataqaana haddii uu qaliw ku yimaado mar shidaalka ku yimaado meelo badan adduunkan ognahay dee meel walba dee koronto iyo shidaal kama maarato sidaa darteed agabyadii mataqaana siba aad wax u saameynaya shirkadaha gaadiidka ka shaqeysta macnaha safarada ka shaqeysta iyada saameyn buu ku yeelanayaa marka arrimahaas haddii uu dhasho oo shirkadu mataqaana kharash uga baxayay shidaalka ama gaaska wuxuu doon ha noqdee haddii uu kordho waxay keeni kartaa in mataqaanaa ayaguna dee agabka ay soo saari doonaan in ay mataqaanaa ay kordhiyeen marka arrinta labaad waxaan dhihi karnaa waxay noqonaysaa arrin sicibara ka dhasha waxyaalaha lasoo dhoofsado sanahaan oo kale waddankeenna inta badan wax ka soo dhoofsadaa waddanka imaaraadka Dubai marka haddii imaaraadku uu ka dhasho sicibara uu ka dhasho haddii waddanka uu sicibara ka dhashay alaabtiisa aan soo dhoofsano sanahaan oo kale shirkad ka shaqeysata soo saarista kombiyuutarada inay kombiyuutarada samaysa kasoo qaado kombiyuutarada arrimahaas ka shaqeystaa waddankeena ku taallaa haddii imaaraadka spare partiska kombiyuutarka laga sameeyo kasoo dhoofsato ama inputskiisaba ay kasoo dhoofsato macnaha waxay ka dhigan tahay in ay shirkadani ay soo dhoofsatay agab qaalisan oo imbartigiisu mataqaanaa dee agab mataqaanaa qiimo ahaan u qaali ah in waddanka sicbar baa ka jira marka waddamada way issaameeyaan oo waddan sicbar ka jiray waddan kale wuu u gudbin karaa marka arrintaas waa in mataqaanaa taxadarkeedu leedahay mowta in ay dadka wax soo dhoofsanaya importeriska ay ka fikiraan waddankaas inuu sicbar ka jiro isan alaab mataqaanaa sicir bararaysan aysan soo dhoofsan marka arrintaas haddii waddanka isagoo kasoo dhoofsado hadhow dee isaguna alaab qaali ah buu soo dhoofsadee waxay keenaysaa in outputkiisana mataqaanaa agabka in hadhow alaabtan qaliyu ku yimaaday dee waxay kaga jaran tahay macaamiisha oo bareyska lagu darayaa ina mid walba wuxuu qiimeynaya hadhow ninkan average costiga ku baxay buu qiimeynaya hadhowna saas ayuu isagoo hataa faa'iido ku darsanaya iyo saa mataqaanaa uga iibin doonaa dadkii consumerska ahaa ama customerskii marka arrintaasna way keentaa in uu sicir bararku sababo sicir bararka macnaha costiga in ay keenaan arrinta kale de horey usoo sheegna waxaa ka mid ah in mushaarka shaqaalaha uu qaaliyoobo mar walba shaqaalaha mushaarku kaa qaadanayay uu kordho macnaha waxay ka dhigan tahay in kharashkii kaa baxay uu batay ka dhigan tahay marka shirkaduhu inta badan waxay raadiyaan meel ay si fudud uga heli karaan natural mataqaanaa resourcigii ay si fudud uga heli karaan ama wax walba ay uga baahan yihiin wax saarkooda inay si fudud ku heli karaan iyo meeshii ugu raqiisan ay ka heli karaan shaqaale mushaar raqiis uga shaqeeya way inta badan raadiyaan wadamada hadda waddanka Chinaha waxyaalaha shirkada inta badan ay halka ugu ordaan waxyaalaha ka mid ah weeye in ay mataqaanaa resource uga baahdaan ay heli karaan sidoo kale shaqaale mushaar raqiis uga shaqeeyana ay heli karaan marka arrimahaas waa arrimaha mataqaanaa keeni kara haddii mushaarka shaqaaluhu kordho in uu dhasho waxa la yiraahdo cost push inflation arrinta mataqaanaa kale waxaa ka mid in canshuur ay dowladdu ku soo rogto oo shirkadahan ama kambaniyadan ay canshuur xad dhaaf ah ay doonto in dowladda ka qaado arrintaas waxay keeni kartaa dee in shirkadda canshuurta ma kubato
hadhow shirkadan raga xisaabaadka u fadhiya dee waxay eegayaan agab walba averageka kusoo aadamaya bay eegayaan hadhowna qiimihii cashuur ay kusoo aadamta agab walba isaga ayay mataqaanaa macaamiisha ku wareejinayaan fiyaadkiisa lagu daraya barayskiisa lagu daraya barayskiisa marka lagu daro shaygan waxay keenaysaa dee in mataqaanaa ay ku iibiyaan qiimo qaali ah hadhownaata macaamiisha in awoodi waayaan arrimahaas ka dhalan karaa marka arrintaasna way keentaa arrinta kale keento waxaa ka mid ah in ay shirkaduhu ay doonaan inay shirkaduhu noqdaan kuwa faa'iido doon ah macnaha hadafka shirkadu walba waa in ay faa'iido hesho taasoo waxa laysku waafaqsan yahay laakiin in dee xad aysan macaamiishu awoodin in ay mataqaanaa wax ku iibiyaan oo kale ay faa'iido badan ay raadis noqdaan faa'iido badan raadis doon oo noqdaan arrintaasna waxay keeni kartaa cost push inflation arrinta kalena horeba usoo sheegna waxaa ka mid ah inuu mataqaanaa qiimihii cuntooyinka enerjiga mataqaanaa waxyaalaha ay ku yimaado koror ku yimaado marka arrimahaas waxa ay yihiin arrimaha keena cost push inflation